Assalaamu calaykum asxaabi waan salaanay maanta waxaan sharaxaynaa film aad iyo aad ula yaab leh ku soo dhawaada oo subscribe saara channelka haddaba filimka waxa ku calaamadsan wiil yar filimka waxa la dhahaa The Billionaire kala faa'iideysi wacan like na saara channelka insha Allah haddaba filimka waxa uu ku bilaabmayaa wiil yar oo la dhaho Top oo ah 19 jir haddaba bankiga waxa uu ka amaanayaa lacag dhan 12 milyan oo baht oo u dhiganta lacag Thailand $300,000 haddaba maamulihii shirkadda ayaa isku dayaya inuu ka wareysto sababta lacagta inta leeg uu amaahanayo waxaan uga sheekaynayaa yaraantiisii inuu jeclaa ciyaarta gameska online-ka isagoo ka sameynaya lacag waliba dhaqaale badan haddaba kaliya isaga kuma joogin waxa uu iibin jiray qalabka lagu ciyaaro gameka midkana waxa uu siin jiray lacag ah 12,000 baht oo u dhiganta $370 lacagtii gaadhina waa uu ka iibsaday si kastaba ha ahaatee waalidkiisu kuma raacsan inuu gamekan ciyaaro waayo waxay rabaan in waxbarashadiisa ku noqdo uuna sii wato haddaba Top waxa uu ku guuldareysanayaa inuu ku biiro jaamacadda dawladda isaga ay hooseeyeen dhibcihiisii imtixaanku waayo dawladdu ma qaadato qof hooseeya halkaana waxaa kala kulmaya niyad-jab aad iyo aad u weyn laakiinse weli ismuu dhiibini uu sii wataa haddaba maalin waxa uu soo galaya waalidkiisa waxaanay ku odhanayaan baarbaaro jaamacad dabadda waxaanu maqlayaa waalidkiisa oo ka cabanaya xagga dhaqaalaha aanay waxba haysan waxaanu gelayaa akoonkiisa isagoo waxa arkaya akoonkiisa oo la xiray isagoo ku isticmaalay si sharci darro hadda lacag badan uma harin waxaanu isku dayayaa inuu iibiyo qalabkii elektarooniga ee uu markii hore lacagta geliyay si uu caawiyo waalidkiisa una ula shaqaysto nasiib darro qalabkii waa laga iibsan waayay sababtoo ah waxa uu ahaa qalab la soo xaday oo ay qaar tuugaa ka iibiyeen Top aabihii waxa uu siinayaa lacagta uu jaamacadda ugu biiro si Top waa uu ka diidayaa waayo ma rabo in waalidkii dhibo ama uu keeno hawl iyo qarash si aabihii waa uu iska aamusayaa waa inuu iska daynayaa intaa kadib Top waxa uu hadayaa dahabkii hooyadii isagoo isu ballan qaadaya inuu soo celin doono uuna ku dhigan doono jaamacadda suu lacagta waxbarashada iskaga bixiyo haddaba maalintii koowaad wuxuu ka soo baxsanaya waxbarashadii waxaanu imanayaa meel lagu iibiyo qalabka cuntada waxaanu iibsanayaa makiinad hagaajisa lowska yacni waa talagu shida lowskee waxaanu baranayaa si lowska loo hagaajiyo waxaana baraya ninkii ka iibiyey kadib waxa uu karanayaa cunto wanaagsan oo aad iyo aad looga helay haddaba intaa kadib isaga iyo adeerkii waxay furanayaan meel lagu iibiyo lowska ama cuntada dibadna way ku guuldareysanayaan sababtaa uma imanayso macmiil badani sabab la xiriidha cuntadooda aan macaaneyn ama aan lahayn dhadhan haddaba marka dhowr meelood furteen akhrika waxa ay yeesheen macaamiil fara badan kuna soo xidhantay haddaba maalin baa Top waxa uu timid gabadha saaxiibayiin oo kule ku soo noqo jaamacadaadii laakiin Top waxa uu saarayaa diiradda inuu ganacsado xagga ganacsiga ayaan u fara badan yahay haddaba Top intaa kadib wax shaqo ma hayo sidoo kale waxa ka xumaaday mishiinkii yaraa oo meeshii u kaleystay ku sameeyay qiiq meeshina waa laga eriyay oo waa laga saaray waayo wax madoobaanaya gurigan lama rabo inuu madoobaado haddaba Top waalidkiisa ayaa ka codsanaya inuu u raaco Shiinaha sababtoo ah halkan lacag fara badan baa laga leeyahay haddaba Top waa ka diiday waalidkiisa waxaanu ku oran doonaa maalin uun baan bixin doonaa lacagta waqti kastaba ha ahaatee waalidkiisina waxay aadi doonaan wadanka Shiinaha iyagoo aad iyo aad u murugaysan oo wiilkooda ka hadhay ka xanaaqsan haddaba Top waalidkii waa iskaga tagi doonaan waxaana aadi doonaa wadanka Shiinaha intaa kadib Top waxa uu imanayaa xaafadooda bise xaafadoodii waxaa la wareegay bangigii kula hadla lacagta haddaba Top waa uu sii niyad jabaya aad iyo aad baan u qaraacmaya haddaba isagoo meel fadhiya waxa uu imanaysa saaxiibadiisa jaamacadda la dhigan jirtay waxaana ku oranaysaa maxaad uga jawaab weyday message-keygii haddaba waxay soo raacayaan meel gaariya ay fuulayaan waxaanay soo saaraysaa geed badeed waanu dhadhaminayaa mise waa macaan haddaba waxa uu soranayaa Top alaabtan shaqa ku jirta geedkan ka shaqeyso oo dalkaaga kaga shaqeyso haddaba Top inta arrinkii waa ku sii fikirayaa intaa kadib waxa uu tagayaa Islaan uu doonayay inay barto geedkan sida loo moor garanayo ama sida looga ilaalinayo inuu qudhumo waxaanay u sharaxaysaa waxyaabo badan oo ku saabsan moorgaraynta iyo hawsheeda iyo in bacdan laga saaray oxygentii haddaba arrinkaa marka loo sharaxo Top intaa kadib waa ku qancaya waxaanu doonayaa inuu shaqadii bilaabo haddaba shaqadii markii uu gudagalay waxa uu arkayaa in waxaanu qaraadh yahay wax caadiya inaanu ahayn laakiin intaa kadib kama niyad jabayo uu sii wadayaa hawshiisa adeerkii waxa uu kala talinayaa inuu aado waalidkii oo jooga Shiinaha laakiin Top waa uu ka diidayaa arrinkaa haddaba habeenada ka mid isku dagaysay labaad waxa siibanaya adeerkii waxaanu geynayaa meel cusbitaala kadib baakadii ayaa mid soo dhacaysa waxaana ku daaya roob haddaba maxaa dhici doona bal isha hal isku hayo haddaba Top wixiiba waa uu shiilayaa waxoo dhanna waa uu dhammaynayaa si mar mayd uu shiilayo aakhirkii waxba waa waaya haddaba meeshii baa maranaysa waxba waa uu ka waaya haddaba xabadii roobku helay ayaa markii dambe la shiilayaa xabadaasi waxay noqonaysaa xabad macaan oo kuwa kale ka duwan
haddaba nasiib wanaag waxaa la ogaanayaa haddii geedkan lagu daro biyaha ama roobka inuu geed macaan noqonayo waxa uuna u geynayaa adeerkii waana la baaraya hawshan. haddaba Toob adeerkii waa soo ladnaanaya hawshii baana iibinayaan iyo caleentii waxaanu ballan qaadaya Toob inuu bishii iibinayo $3,000 waxaana soo garaacaya Toob waalidkii. haddaba Toob marka waalidkiisa waxa uu sheegay in lagu leeyahay lacag gaaraysa 40 milyan oo baad oo u dhiganta $1,200,000. haddaba waa uu quusanaya waxaan oranayaa lacagta inta lagma moodin waxaan u dhageysanayaa dhiirigelin iyo hadallo qofka kor u qaadaya. haddaba habeen isagoo dhex lugeynaya suuqa ayaa waxa arkaya xafiis la dhaho 7-Eleven waxaanu damcayaa inuu ku iibiyo alaabtiisa xafiiskan. haddaba waxa uu la kulmayaa gudoomiyihii waxaanu ku oranayaa alaabtaydii waatan ee ay halay iibiyo kadib waxay ku oraysaa alaabtaadu waa qadiimi waana qaali oo hadda lama rabo. haddaba waxay kala hadlaysaa meesha moolka laga dabayo isagoo cadhaysan ayuu saa u eegayaa iyadoo kule hadallo jees-jeesa aan wanaagsanayn naxariisna aan lahayn. intaa kadib waa iska dhaqaaqaya isagoo niyad jabsan oo cadhaysan. haddaba waxa wada kulmayaan saaxiibadiisa ay wada dhigan jireen jaamacadda waxaana ku oraysaa stage ana waalidkii lacag ku weydiinaya aad ku shaqaystee. haddaba isna waa uu ka diidaya waayo waxa uu doonayaa inuu ku shaqaysto xoogiisa cidna aanu baryin. haddaba wuxuu dhahayaa aan ka bedelo baakadahan ama waraaqda noocana aan ka bedelo alaabteeda aanu la sameeyo baakad kale. kadib waxa uu imanayaa xafiiskii isagoo doonaya in alaabtii laga iibsado. haddaba in badan buu sugayaa gudoomiyihii in badan baan meeshii ku sugayaa. intaa kadib waxa ku ilaawayaa xafiiskii alaabtiisii wuuna kaga tegayaa. nasiib wanaag waxa soo wacaya waalidkiisii waxaan u sheegayaa inuu imanayo wadanka Shiinaha wana waalidkiisa u tegayo. haddaba alaabtiisa waxa ka helaya shaqaalaha 7-Eleven qaar ka mid ah waxaan isugu yeedhayaan xafiiska iyagoo u sheegay in alaabtiisa ugu iibin doonaan ugu yaraan 2 xafiis. waa uu qaadan waaya sababtoo alaabtiisa waxa uu ku ilaaway meesha ee muus lahayn waxba laga iibsanayaa. haddaba waxa gudoomiyadu u ballan qaaday in loo iibin doono 22,000 oo xidhmo oo caadi ah. isna dhabanka ayaa gacanta saaray oo uu qaadan waayay alaabta barta ku ilaaway oo maanta loo iibinayo. haddaba agaasimo mar labaad waxa uu ballan qaaday in ugu yaraan loogu iibin doono 6,000 oo goobood alaabtiisa oo la soo hubin doono meesha ku sameeyay alaabta iyo nadaafadeeda. laakiin nasiib darro ma awoodo lacagta inta lag si waxa uu aaday banki suuqa soo amaahdo lacag. haddaba waxa uu tagay bankigii waxaana xasuusan kartaa isla bilowgii filimka sababta loogu diiday waxay tahay da'dii soo yar iyo waliba heerkooda oo lagu leeyahay lacag aad iyo aad u tiro badan. isna waa uu niyad jabay waayo waalidkiisu waxay Shiinaha waadeen qarash lagu leeyahay oo ay iska bixin kari waayeen. haddaba aad iyo aad buu u niyad jabay isagoo saaran gaarigiisa waxaanu imanayaa marka dambe store ay waalidkiisu lahaan jireen bari hore waxaanu jeclaanayaa inuu ku bilaabo ganacsigiisa una iibiyo gaarigan kadibna uu qalab badan iibsado una samaysto shaqaale fara badan oo uga shaqeeya shirkadu samaysto. kadib waxa arkaya saaxiibadii oo khiyaantay oo la socota nin kale taana waa ka sii niyad jabaya oo ka sii xumaanaya. intaa kadib waxay hagaajinayaan warshadda waana hagaajinayaan oo khamkhameynayaan. kadib waxa uu imanayaa agaasimaha waraaq ka soo taxagiisa oo leh waanu ku ogolaansho ayaanu ku siinay. kadib uu farxaya Toob. haddaba Toob waxa uu shir la galiyaa shirkadda weyn ee aad iyo aad ka ballaaran oo xiriir weyn wada yeelanayaan. waxaan u mahad celinayaa adeerkii waxaan u sheegay haddii markaan niyad jabo ama ay hawsha ka baaqato inuu iskaga tagay hawshan uun aadi heerkiisa. haddaba Toob badeecadiisii waxay gaaraysaa xafiiskii waxaana dib dhacaysaa 1 saac. haddaba gudoomiyihii meesha ayaa ku oranaya badeecadaada waxay dib dhacday 1 saac. Toobna waa u baraya isagoo leh biliis iga yeel hawshan. kadib waa loo yeelayaa waana loo xareynaya alaabtii. intaa kadib Toob waxa uu la hadlayaa heerkoodii waxaanu ku oranayaa soo noqda lacag ban yeeshay. haddaba hadeer Toob wax kasta oo hagaageen hawshiina way u socotaa guulo badanna waa soo maray. lacagtiin waxay ku qaadanaysaa inuu iska bixiyo 2 sano. haddaba lacagtii aad iyo aad u fara badnayd waxaanu soo amaahanayaa lacag kale si uu si ballaariyo shirkadiisa oo uu si weyneeyo. haddaba Toob 2010 waxa uu shaqeynayay 2,000 oo shaqaale sidoo kale alaabtiisa waxa la geynayay 2,000 oo goobood. sidoo kale waxa gaadhay alaabtiisu 6,000 oo goobood oo ay leedahay shirkadda 7-Eleven. haddaba hadda dhaqaalaynta waxa lagu xisaabinayaa 45 milyan soo gaadhay cimrigiisu 26 jir. haddaba la subscribe noo saar channelka siina share garee aad iyo aad u mahadsantahay daawashadaada. wassalaamu calaykum.